ujeedadayduna ma aha inaan muxaadaro dhigaba markaan meesha imaanay laakiin bulshada qaar ka mid ah culimada iga codsaday dhowr bal inala joog khudbada jumcadana noo jeedi muxuu ahaay muxaadaraadna magaalada ka jeedi waan baaqday anigoo magaalada Nairobi hawlo badan kule baan saa u baaqday hadday mushkila abuurantayna go'aan waxaan qaatay intii hatta iska dhaaf dhiig ku daatee ruux Soomaaliya intii lagu xidhi lahaa ama xabsi ku gali lahaa sababtay ayada mahla kansal ayadoo waliba dawladdu ku madax adag tahay ana diiday oo ku yiri maya ma dhacayso hatta madaxweynaha waxaan ku qanciyay qiso waxaan u keenay Uthman ibn Affan khalifatu Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa loogu yimid duulaan niman kacdoon duulaan ugu yimid xafiiskiisiiba isku wareejiyeen inay dilaan bay rabeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay baa damcay inay difaacaan oo dagaalamaan oo khaliifka muslimiinta difaacaan Uthman wuxuu ku yiri ruux muslima intii sababteeda dhiig ugu daadan lahaa u baneeya faraha ka qaada dagaalamina way ka baxeen saxaabadii nimankii way u soo galeen Uthman asagoo quraan akhrinayay ku dileen